halkani waa BBC oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa fiidnimo arbaca oo khamiisi soo galayso 7 January sanadka 2018 saacadda Afrikada barina waa 9kii fiidnimo. qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah Kenya sargaalka u sarreeya garsoorka David Maraga oo uga digay dawladda inay dhagaha ka furaysato amarada ay bixinayaan maxkamadaha. amaradaasina waxaa ku jiray kii ahaa in la sii daayo qareen mucaarad ah oo dalka laga dhoofiyey. iyo muxuu yahay qorshaha madaxweyne Zuma uu doonayo inuu xilka kaga dego kadib cadaadis xoog leh oo la saaray. waxaad kaloo barnaamij ku maqli doontaan. Ich bin überzeugt, der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das. waa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo sheegtay in dalka loo dhisayo xukuumad wadaaga. dalka Shiinahana booliska ayaa bilaabay inay gashadaan ookiyaale ay ku rakiban tahay farsamada casriga ah oo ay ku aqoonsanayaan qofka wejigiisa. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. anigoo aadan Saalamin aan soo jeedinayo caawa iyo caalamka. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. mahadsanid Saalamin. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay inay ku ballan qaadayso dawlad fiican oo degan Jarmalka kadib markii isbahaysigu ay heshiis la galeen. heshiiskaas oo la doonayo iyaga iyo SDP in ay meel mariyaan. heshiiskaasi waxa uu ka dambeeyey 4 bilood oo gorgortan uu jiray kadib markii go'aan laga gaadhi waayey doorashadii dalka ka dhacday. xisbiga SPD ballan waxay u qaadeen dadka xubnahooda ah inay codayn u ogolaan doonaan inay aqbalaan heshiiskaasi iyo in kale. waxaana la sheegay dowladda in laga yaaba in la sameeyo horaanta bisha March. taa haddii la sameeyo Angela Merkel waxa ay noqonaysaa inay xafiiska markii afraad haysato. waxaa kale oo la sheegay inay markaa faraha ka qaadi doonto wasaaradda maaliyadda oo loo gudbin doono xisbigan ay isbahaysiga leeyihiin. xisbigaasi dad badan oo ku jira waa SPD ayaa waxa ay ka cabsanayaan tallaabadan heshiiska lagula galay Angela Merkel iyo xisbigeeda muxaafidkii waxyeello inuu xisbigooda u geysto. garsooraha sare ee cadaaladda waddanka Kenya ayaa dowladda waxa uu uga digayaa inaanay ku gacan sayrin amarada dowladda ka yimaada maxkamadda. David Maraga ayaa waxa uu sheegay dowladda oo ku guulaysan weyday go'aano ka soo baxay maxkamadda inay tahay ku xadgudub dastuurka dalka iyo iyaga oo awooddii loogu talagalay inay dalka ku xukumaan faraha kala baxay. dowladda Kenya dhowaan waxaa lagu eedeeyey inay iska indhatirtay amar ka soo baxay iyo amarro ka soo baxay maxkamadda. waxaa ka mid ahaa in la sheegay nin raacsan dhinaca mucaaridka oo qareena Miguna in loo diiday damaanad markii maxkamaddu sidaa ay tidhi. waxaa la sheegay in la xidhay dabeedna loo dhoofiyey dalka Canada isaga oo haysta basaboort Kenyaanana. dowladda waxaa kale oo lagu eedeynaya inay diiday in ay u ogolaato telefishinada qaarkood in ay shaqeeyaan kadib markii maxkamaddu ay sidaa tidhi. dhaqdhaqaaqyada Suuriya ayaa waxa ay sheegeen weli inay socoto duqayska weyn ee dowladdu ay ku hayso kooxaha ama goobaha ay haystaan mucaaridku meel ku dhow magaalada Dimashq oo ugu yaraan 32 qof ay ku dhinteen. in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay bariga Ghouta labadii maalmood ee soo dhaafay sida ay sheegayaan urur saldhigoodu uu yahay Britain oo indhaha ku haya xuquuqda bini'aadmiga ee dalka Suuriya. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegayaan duulimaadyada dowladdu ay ku hayso deegaankaasi inay sii kordhayeen maalmihii soo dhaaftay waxaanay ka codsadeen dhinaca bini'aadminimada rasaas joojin in la sameeyo. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay wadamada kalena uga digaysaa inaan la faragelin qarannimada Maldives taasoo ay sheegeen inay xaaladaasi adkaynayso. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Shiinaha ninoo hadlay Geng Shuang ayaa waxa uu sheegay saacadihii soo dhaafay tallaabada
uu sheegay nin ka tirsan militariga waddankaasi indiya oo uu sheegay diyaar inay yihiin ciidamadoodu inay wakhti gaaban ku geeyaan ciidan dhulkaasi in shiinuhu ay ka cabanayaan. toddobaadkan horaantiisii madaxweynaha moldaviska cabdalla yamiin ayaa waxa uu dalka ku soo rogay amar degdega isagoo sheegay macaaridku inay sameeyeen waxa loo arko afgembi. nin hore uga ahaan jiray madaxweyne dalka maxamed nashiid ayaa waxaa ku codsaday indiya inay arrimaha soo farageliso. banaanbaxyo ayaa ka dhacay safaaradda ruwanda ay ku leedahay israa'iil. qorshaha israa'iiliyiintu ay doonayaan 40,000 oo ah dad muhaajiriina inay ka dhoofiyaan dalka. banaanbaxaasi waxa ay dadku ku qaylinayeen in madaxweynaha dalka ruwanda Paul Kagame oo hadda ah guddoomiyaha midowda Afrika in uu u hadlo dadkaasi muhaajiriinta ah. dadka badidoodu waxay ka yimaadeen Suudaanta Koonfureed iyo Eritrea. israa'iiliyiintu waxa ay sheegeen dadkaasi in ay doonayaan inay ka baxaan dalkooda dabayaaqada bisha March ama la xidhi doono. waxaa kaloo iminka dadkaasi gacanta laga geliyey waraaqihii lagu dhoofin lahaa. ninka u ciyaara xulka qaranka ee Chile dhinaca kubadda cagta Alexis Sanchez ayaa waxaa lagu xukumay 16 bilood oo xabsiya oon la xirayn laakiin haddii aanu dembi gelin arrin ku lug leh musuqmaasuq dhinaca cashuuraha. Sanchez waxaa la sheegay in lagu haysto inuu qariyay lacag ilaa $1 milyan oo uu ku herayey sawiradiisa ama maryaha isagu u leeyahay ee la xayeysiiyo markii uu ciyaarayay klabka Spain ee Barcelona. bishiina soo dhaaftay waxa uu ku soo biiray Manchester United isagoo u ciyaari jiray Arsenal. maasanid cabdirasaaq, halkani waa London. aan ku bilowne Kenya sargaalka u sarreeya garsoorka ee lagu magacaabo David Maraga oo war qoraal ah soo saaray ayaa uga digay dowladda inay dhagaha ka furaysato amarada ay bixiyaan maxkamadaha. amaradaasi waxaa ka mid ah maxkamadda oo amartay in la sii daayo qareen mucaaradka la jira oo lagu magacaabo Miguna oo hadalkiisa markaasi la sugayay in damiin lagu sii daayo oo waxaana la saaray diyaarad oo waa la masaafuriyay. diyaaraddaasina waxay u socotay waddanka Canada oo u dhalasho kale ka haysto. dowladdu waxa ay haysataa qareenkaasi oo ay ku haysataa khiyaano qaran inuu sameeyey markii uu ka qayb galay dhaartii magacyaalka ahayd ee hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu isu caleema saaray madaxweynaha shacabka. wariyaha BBC-da Alastair Lethid ayaa warkan ka soo diray Nairobi. waxaa soo jeedinaya Axmed Cabdinuur. madaxa garsoorka dalka Kenya waxa uu ku biiray liis sii kordhaya ee dad iyo ururo dhaleecaynaya ficilada dowladda Kenya ay samaysay 2 toddobaad ee la soo dhaafay. ku dhaqanka amar maxkamad ka soo baxa ma ahan wax haddii la rabo la fuliyo haddii kalena la iska dhaafo, laakiin waa waajibaad dastuuri ah in loo hoggaansamo amarka maxkamadda, ayuu tilmaamay David Maraga kadib markii ay dowladdu iska dhigatirtay awaamiir maxkamadda ka soo baxday oo ay ugu horraysay xiritaankii xarumaha telefishinada gaarka loo leeyahay muddo 7 ka badan, mar labaadna qabashadii iyo tarxiilkii ka dambeeyey ee qareen mucaaradka Kenya ka tirsanaa, inkastoo ay maxkamaddu amartay in la sii daayo. warbaahintii la xiray waxa ay ka dhalatay isdhaarintii khayaaliga ahayd ee Raila Odinga inuu yahay madaxweynaha shacabka. waxaa si aad u ballaaran loogu arkay inay ahayd xayeysiis ismuujin ah oo hogaamiyaha mucaaradku uu si ba'an isugu dayayo inuu ku soo jiito taageerayaashiisa, laakiin jawaab celinta dowladdu ka bixisay ayaa arrinta heer caalami ka dhigtay, iyadoo dadka wax naqdiya iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda ay ficilada dowladda ugu yeereen kuwa aan dastuurka waafaqsanayn, caburin iyo sharci darro ah. qareenka mucaaradka ka tirsan ee Miguna waxaa la hayay muddo 5 maalmood ah inuu ka qayb galay isdhaarintii khayaaliga ahayd, kadibna waa la masaafuriyey, taasoo uu ku tilmaamay xadgudub lagu sameeyey xuquuqdiisa dastuuriga ah. tacsi been ah oo loo sameeyey nin muhiim ah oo mucaaradka maalgelin jiray ayaa lagu daabacay wargeys heer qaran ah, taas oo loo arki karayay halis. diblomaasiyiinta caalamka waxay haatan ka warwarsan yihiin ficilada dowladda iyo mucaaradka labadaba inay khatar gelinayaan xasiloonida Kenya. Axmed Cabdinuur waa mahadsan yahay. haddaba maxay ka tiri dowladda Kenya masaafurinta qareenka taageera mucaaradka iyo isaguna waxa uu ka yiri wariyaha BBC-da Cabdulqaadir Cali ayaa warbixintan kaga waramaya.
bayaanka ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in musaafuriinta Joshua Miguna loo cuskaday xeerka jinsiyadda iyo socdaalka ee Kenya ee soo baxay sanadii 2011 kaasoo qodobkiisa 33 farqadiisa koobaad iyo qodobka 41 farqadiisa koobaad ay qeexayaan in ninka loo musaafurin karo waddanka Canada. bayaanka waxa uu intaasi ku daray in Miguna uu 1988 dalka isaga tagay isagoo isticmaalaya dukumiintiyo uu ka helay dal ajnabi ah markaa kadibna la siiyey dhalasho Kanadiyaan ah sidaana uu ku noqday nin Kanadiyaan ah. Miguna ayay dowladdu sheegtay in sanadii 2009 uu dalbaday in la siiyo baasaboorka Kenya markaas oo ay sharci darro ahayd in qof jinsiyad kala haysta la siiyo baasaboorka ilaa uu ka tanaasulayo jinsiyadda ajnabiga ah ee uu haysto. dhankiisa Miguna oo ku sii hakaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Amsterdam ayaa BBC-da u suura gashay inay la hadasho. waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay saqdi dhexe xalay si qasab ah ay diyaarad xoog ku saareen. waxa uu sheegay in uu yahay Kenyaan amarnaba ka tanaasulin dhalashadii waddankan weliba uusan weligii ka tanaasulayn musaafurintiisuna ay tahay mid sharciga hareer marsan. waxay yidhaahdeen Raila ayaad ka caawisay inuu geysto dembi weyn oo ah khiyaano qaran maadaama ay ii diideen inaan xiriir la yeesho qareen ii doodo isla markaana aan ogaado sida ay wax u jiraan. aniguna waxaan go'aansaday in xitaa aan diido inaan saxiixo qoraalka muujinaya waxa liigu eedaynaya. kadib waxay yidhaahdeen waxaad ka mid tahay koox dembiilayaal ah oo dalka laga mamnuucay oo la yidhaahdo NRM. aniguna taa waan beeniyey oo waxaan ku idhi NRM-ta aad mamnuucdeen ma ahan tan Kenya ee waa tan Uganda. NRM-ta Kenya ma ahan koox ee waa dhaqdhaqaaq rayid ah. wax caddayna uma haysaan eedeymahaasi. kadib waxay yidhaahdeen Kenya waxaad ku joogtaa sharci darro oo ma tihid nin Kenyaan ah waa ayna isoo masaafuriyeen. I was in Kenya illegally and I'm not a Kenyan. And they deported me. Miguna oo ah siyaasi hadal adag iyo garyaqaan ayaa waxaa toddobaadkii hore loo xiray dambi lagu eedeeyey oo ah inuu ka qayb qaatay xafladii hogaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga isugu dhaariyey in uu yahay madaxweynaha shacabka. Cabduqaadir aad buu mahadsan yahay. sidii warkaba aad ku maqasheen madaxweyne ku-xigeenka South Africa Ramaphosa ayaa waxa uu maanta oo Arbacaha uu sheegay in uu wada hadallo la wada madaxweyne Jacob Zuma wadahadalladaasi oo ku saabsan xal u raadinta qaabka uu Zuma xukunka uga degi doono. President Zuma waxaa saaran cadaadis xoog leh oo ah in uu xukunka ku wareejiyo ku-xigeenkiisa oo ah hogaamiyaha xisbiga ANC ee talada haya. waxaana warbaahinta dalku ay sheegayaan in wadahadallada ay ku jirto heshiis uu ku qanco madaxweyne Zuma. haddaba maxaa sabab u ah khilaafka madaxda xisbiga ANC iyo inuu xilka ka dego madaxweyne Jacob Zuma? Caamir Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan degan Koonfur Afrika ayaa waxa uu warramay wariyaha BBC-da Cabdifataax Ibraahim Cagayare waxaana uu sharaxayaa marka hore waxa uu salka ku hayo ololaha ka dhanka Zuma. wuxuu salka ku leeyahay oo haya wadadii uu qaaday madaxweynihii hore ee dalkani Thabo Mbeki. sababtuna waxay tahay maadaama la doortay madaxweyne xisbiga talada hayo madaxweynahan uu noqon doono musharaxa xisbiga talada hayo ee sanadka 2019 in loo arkay inay jirto laba awood xisbiga iyo tan dawliga ah taasna ay soo jeediyeen golaha qaran ee fulinta in maaragtay madaxweynaha uu xilka uu baneeyo si loo helo madaxweyne waqtiga sii wado inta doorashada laga gaaro ayagoona taasi barbar dhigayo leh taasi waxay ka saaraysaa qayb midnimo la'aanta ka jirta maaragtay guddiga gudihiisa ugu dambeyntiina waxay geli doonaan doorasho ayagoo maaragtay cudud weyn taasina nafsadeeda waxay keentay maaragtay tafarruq iyo qaybsanaan xisbiga talada haya ee ANC. Caamir waxay u muuqatay in Zuma uu gudaha xisbiga ANC ku lahaa awood badan oo ahaa waliba nin lama taabtaan ah haatanse waxaa muuqda isbedel weyn marka isbedelkan muxuu ku yimid? walaal isbedelku wuxuu ku yimid doorashadii dhacday bilo ka hore in qaybtii uu watay madaxweynaha Jacob Zuma oo ahayd Dr. Nkosazana Dlamini Zuma oo ahaan jirtay gudoomiyaha midowga Afrika in looga guuleystay laakiin taa naftirkeed lama oran karo guul oo maaragtay 100% ayay gaareen garabka kale ee uu hogaaminay Cyril Ramaphosa oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka laakiin taasi waxay keentay in 6 jago oo ugu sareysay oo lagu tartamayay 4 ka midna uu ku guuleystay Cyril Ramaphosa 2 ka midna uu ku guureyso Dr. Nkosazana Dlamini ama garabka ayada taageersanaa laakiin taasi 6daasi kali ANC uma arrimiso ANC waxay leedahay guddi ulin qaran oo ka kooban 80 hadii lagu daro 6 maaragtay sarane 86 86 waxaa ka sii sareeya guddi kale oo laga soo saaray oo 25 ah
guddigaas oo loogu magac daray guddiga shaqada ee qaranka. codsigana waxaa soo jeediyey waa guddiga shaqada ee qaranka ee ka kooban 26 guddigaas ayaa usoo gudbiyey guddigan 6 ah oo madaxweyne ku-xigeenka uu gudoomiye madaxweynaha u yahay in madaxweynaha uu xilka ka duwo. marka waxay ku tusinaysaa in awoodii badnayd uu madaxweynaha ku lahaa ay weeqday doorashadii maaragtay December. runtii dalkani dadku waxay u codayaan horta waa axzaab sida runtii axzaab waxaa jirta maaragtay dadka cadaanka ama laga tira badan yahay waxay u codayaan inta badan xisbiga dimuqraadiyadda ee dalka. inta badan dadka madowga qaasatan kuwooda dawlooyinka ama maaragtay ruralka degan waxay u codayaan xisbiga ANC ayagoo maaragtay intifaac badan ku haysto runtiina uu arkaya mar walba inuu ANC tahay xisbiga maaragtay midabta koorka iyo lidkii hore ay ku jireen ka soo saaray. marka waxaa jira dad kale oo madow ah oo wax bartay ama maaragtay middle class oo inta badan u codaya xisbigan la codeeyo. laakiin si walba ay ahaataba madaxweynaha inuu joogo ayay ku jirtaa maaragtay midnimada ANC. laakiin haddii uu tago waxaa suurtagal ah maaragtay tafaruqaas liajligii in ANC maaragtay taqriban percentage ay heli jirta ay lumisay. laakiin waxaanu filaynaa in maaragtay arrintaasi aysan dhicin. haddii ay dhacdane saameyn way jiri doontaa laakiin ma noqon doonto saameyn weyn. caamir sheekh xuseen oo ah aqoonyaha degan koonfur afrika oo u waramayey wariyaha BBC-da cabdifataax ibraahim cagayare. waa hagaag wararka inoo soo socda waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka suuriya oo weerar ku qaaday goobo ay fallaagooda haysato iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo ku baaqday xabad joojin balse haatan jarmalka. ra-iisul wasaaraha jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay ballan qaaday in dowlad wanaagsan oo xasiloon oo wadaag ah la dhisi doono kadib markii xisbigeeda conservative-ka iyo xisbiga social democratic-ka ee SPD ay maanta isku raaceen inay dhisaan xukuumad wadaag ah oo soo afjaraysa ilaa iyo 4 bilood oo dalku aanu dowlad lahayn iyo hubaan la'aantii halkaasi ka dhalatay. Ich bin überzeugt, der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das sein. waxaan aaminsanahay in heshiiska xukum wadaagga ee wadajirka aan uga shaqaynay uu yahay mid asaas u noqonaya dowlad wanaagsan oo xasilooni dalka ku soo dabaasha dalkuna uu u baahan yahay dunida kalena ay naga firayso. waxay noqon doontaa qorshe lagu hagaajin doono nolosha dadka jarmalka ah waddankana u horseedi doona mustaqbalkaasoo wax weyn ka taraya kor u qaadidda iyo kobaca dhaqaalaha oo xoojin doona wada noolaanshaha dadka dalkeenna. wariyaha BBC-da ee magaalada Berlin Damian Mugunis ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Berlin waxaana uu leeyahay taageerayaasha xisbiyada wadaagga ee dowladda ayaa loo baahan yahay. waxaana soo jeediyeen warbixintiisa cabdifataax ibraahim cagayare. hogaamiyayaasha xisbiyada ayaa iyagoo u muuqda kuwa daalan waxa ay ka soo gudbeen wadahadaladii dheeraa ee socday tan iyo xalay. hase yeeshee markan waxay u muuqdeen kuwa xasiloon oo heshiis gaaray. wasaaradaha muhiimka sida midda maaliyadda ayaa waxaa qaatay xisbiga bidix dhexe ee social democratic-ka taas oo ka dhigan in jarmalka uu taageero badan siin doono dib u habaynta lagu samaynayo midowda yurub iyo weliba dhaqaalaha ku faadhacaya ee suuqa midowgaasi. hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga SPD Martin Schulz ayaa laga yaabaa inuu qabto xilka wasiirka arrimaha dibadda. tanina waxa ay ka caraysiin doontaa qaar badan oo ka mid ah xubnaha xisbiga social democratic-ka kuwaasi oo ay tahay in lagu qanciyaa in dowladda mar kale lala soo dhisayo ururka muxaafidka aysan ahayn mid lagu hareer marayo oo lagu khiyaamaynayo qiyamka garabka bidixe. Mr. Scholz ayaa markii hore waxa uu meesha ka saaray inuu xubin ka noqdo xukuumadda ay hogaamiso Angela Merkel. haddaba inuu ballantaasi buriyo ayaa waxa ay waxyeelaynaysaa sumcaddiisa iyadoo uu muuqdaba inuu la dhacsan yahay waxa uu shakhsiyaddiisa u helayo halkii uu eegi lahaa farxadda xisbigiisa. taasna waxa ay sii adkayn doontaa in xubnaha xisbigiisa SPD ay ka aqbalaan heshiiska isbahaysi ee uu la galay xisbiga Merkel. cabdifataax aad buu mahadsan yahay. waddanka suuriya mucaaradku waxa ay sheegeen in duqaynta diyaaradaha dowladda ee ku socota degmada u dhow caasimadda Quuta ay ku dhinteen 32 qof oo rayid ah. duqaynta shalay dhacdayna waxaa ku dhintay 50 qof. dad ka badan ayaa la leeyahay. dowladdu waxa ay sheegtay in xoogaga fallaagadu ay duqeeyeen oo gantaala ay ku soo rideen magaalada caasimadda taas oo ay kaga jawaabayaan duqayntaasi. Kamaal Alam oo ka tirsan macadka Royal United Service Institute ee ku yaala magaalada London ayaa waxa uu mar booqday Suuriya wuxuuna wada hadallo la yeeshay saraakiisha dowladda. waxa uu BBC-da u sheegay in ciidamada Suuriya ay ka jawaabayaan weerarada uga imaanaya mintidiinta.
waxaan u maraynaya inay jirtay meel dagaalka laga yareeyey oo markaa xoogaa deganaanshaa la helay bishii disembar ee kale hore xataa waxaa jirtay mar maxaabiis la isweydaarsaday gargaarkana la oggolaaday inuu goobta tago hase yeeshee waxaan u malaynayaa dabayaaqadii sannadkiina soo dhaafay rabshaduhu inay ku xoogaysteen meeshii dagaalka ka caaganayd oo labada dhinacba ay ka dambeeyeen dhinaca dowladda waddanka suuriya waxay ka warwarsan yihiin madaafiicda joogtada loogu soo ridayo oo shalay 3 qof oo rayidihii ay ku dhinteen 10 ay ku dhinteen toddobaadkiina soo dhaafay oo labada dhinacba ay mas-uul ka ahaayeen sida ay leeyihiin suuriyiintu waxa ay doonayaan goobta inay galaan si ay uga safeeyaan kooxaha mitidka ah haddaba duqaynta diyaaradaha dagaalka ee dowladda suuriya ee dhulka ay fallaagadu xukunta ee ku dhow caasimadda waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof degmada quuta oo ay haystaan kooxo kala duwan oo fallaaga islaamiyiin isugu jira waxaa ka dhacayay sannado dagaaladii ugu xumaa ee suuriya soo mara waxaana talaadadii ku dhintay ilaa 80 qof sidaa darteed ayaa duruufaha adag ee halkaasi ka jira dartood jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay ku baaqday in xabad joojin degdeg ah la hirgeliyo wariyaha BBC-da Axmed Nagaashe ayaa ka warramaya saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay inay u baahan yihiin ugu yaraan muddo bil ah si ay gargaarka u gaadhsiiyaan goobaha colaaddu ka socoto islamarkaana ay dadka aadka u buka uga daadgureeyaan dhawaaqoodani waxa uu soo baxay iyadoo duqaymo cirka ah sida la sheegay salaasadii 80 qof lagu dilay bariga quuta oo ay gacanta ku hayaan fallaagadu khubarada dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay baadhayaan wararka sheegaya in qubuladaha lagu riday goobaha si ay ku jirtay sunta kaloriin sidoo kale shaqaalaha caafimaadka mucaaradka iyo quwadaha reer galbeedka ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu u adeegsadeen kiimiko suna 6 weerar oo 30kii cishe lasoo dhaafay ka dhacay bariga quuta iyo magaalada saraaqib ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka idlib ee fallaagadu haystaan hase yeeshee dowladdu eedeymahaas oo dhan ganafkay ku dhufatay waxaanay ku sheegtay been mutuxan laakiin madaxa guddiga caalamiga ah ee qaramada midoobay u xil saartay baadhitaanka arrimahan ayaa ku tilmaamay wararka kuwa argagax leh kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com wararkii ciyaaraha ayaa goordhow inoo soo socda balse markana Shiinaha dalka Shiinaha ciidanka booliska ayaa waxa ay bilaabeen inay gashadaan oo kiyaal ay ku rakiban tahay farsamada casriga waxana ay aqoonsanayaan qofka wajigiisa oo kiyaaluhu waxa uu ku xiran yahay xarun lagu kaydiyo macluumaadka dadka dambiyada lagu tuhmo ee diiwaan gashan waxaana booliska u suuroobaysa inay dadweynaha dhexdiisa ay ka arki karaan oo ay ka garan karaan qof baxsad ah oo ay raadinayaan wariyaha BBC-da Celia Hatton ayaa ka warramaysa waxaa soo jeedinaya Maxamed Maxamuud Cadde wax u dhigma waxyaabaha basaasiinta mustaqbalka bugaagta lagu qori doona ayaa hadda laga isticmaala waddanka Shiinaha warbaahinta dawladda ayaa sheegaysa in okiyaalayaal leh kaamera dadka wajigiisa aqoonsanaysa ay gacan ku siisay booliiska inay qabtaan 7 qof oo laga shaki qaba oo tareen saarnaa magaalada Zhengzhou Shiinaha ayaa caalamka oo dhan hormuud u ah teknoolojiyadan wajiga lagu aqoonsanayo waxayna aalaaba ku wargelisaa muwaadiniinteeda inay haysato qalab suuragelin kara in aanan sidaba xukuumadda aan looga dhuuman karayn dadka dhaleeceeya Shiinaha ayaa sheegaya inay jiraan sababo badan oo looga baqayo awooddan xukuumadda gacanteeda ku urursan waxayna ka walwalayaan in teknoolojiyadan gacanta xukuumadda ku jirta ay awood dheeraada siin doonto hogaamiyayaasha keligood taliya ee waddanka Shiinaha si ay u dabagalaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda ama dadka laga badan yahay u faqooqaan maxamed cadde aad buu baahsan yahay qodobkaasina dhinaca facebooka dhegeystayaasha iyagu ra'yigooda soo dhiibtay waxaa ka mid ah maxamed amiin ibraahim abiib oo jooga magaalada boorama waxa uu leeyahay runtii ookiyaalahaasi booliska Shiinuhu ay ku arki karaan qofka baxsadka ah ama wejigiisa ay ka garan karaan waa aalad casriya waxa ayna ila tahay buu yiri in adduunka aan ku noolnahay uu horumar ku tallaabsaday
xasan fanax biley oo jooga magaalada bacadweyn waxa uu leeyahay runtii dalka shiinuhu waxa uu ku tallaabsaday horumar la taaban karo oo dhinac walba leh, tan ugu dambaysana waa mid wax weyn ka taraysa dhanka ammaanka iyo la socodka dembiyada. cabdiqaaliq xaaji xuseen oo magaalada burca ku sugan ayaa isaguna waxa uu qabaa inay tani tahay horumar casri ah oo markaasi laga sameeyey dhanka baaritaanka dembiilayaasha, waxaana ay ka caawinaysaa buu yidhi ciidanka shiinaha inay si fudud ku helaan cidda ay raadinayaan, waxaana ay ka mid tahay buu yidhi xadaaradda lagu tallaabsaday. ugu dambayntiina maxamuud cabdinuur cali oo jooga magaalada muqdisho waxa uu leeyahay waan soo dhoweynayaa horumarka ay gaareen askarta shiinaha, waxaana isweydiin mudan buu yidhi tolow askarta soomaaliya goormo ayay horumarkaasi gaari doonaan. kuwaasina waxay ahaayeen dhegaystayaasha dhinaca facebooka iyagu ra'yigooda nagula soo xiriiray. deegaanka soomaalida ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya waxaa ka jira hay-ad siisa dadka saboolka ah ee danyarta lacaga amaah oo ay ku shaqaystaan kadibna ay soo celiyaan. khadar axmed cabdi waa maareeyaha hay-adda adeega lacagaha yaryar ee deegaanka soomaalida, waxaana u warramay wariyaha BBC-da cabdinaasir maxamed xikam. guud ahaan qaabkaan u shaqeyno waxa weeyaan adeegyada aan bixino kale haddaan ku horeeyo adeegyada aan bixino waxaa ugu horeeya adeega deynta oo aanu deymo kala duwan oo deymo yaryar oo koox dadka intii laisugu habeeyo lacaga yar la siinayo iyo deymo shakhsiyaad qofkii shakhsi iskii deyn doonaya ganacsi inuu samaysta rabo deyn la siinayo iyo shirkadaha ama iskaashatooyinka iyo la siinayo deyn ah intaaba waan bixinaa. waxaa kale oo macnihi deynta ugu muhiimsan oo dadka aanu focuska saarna waxaan la yidhaahdo dadka active poorka la yidhaahdo, qof macnihii danyar ah ee shaqaysan kara kartile laakiin hayntii dhaqaalo ay ka xun tahay. adeega labaadan bixino waxa weeyaan adeega kaydsiga oo aanu dadka baro dhaqanka kaydsida inay waxa ay shaqaystaan wax ka mida inay kaydsadaan. maxaa faa'iido shirkadda u ah oo soo noqonaya marka iyada haddaad adeegaasoo dhan bixisaan? xafiiskani si uu jiro mustaqbalka waa inuu kharashkiisa dabooli karo oo isagu soo saaro. marka kharashkiisa marka uu daboolayo lacagaha yaryar oo charge oo aad u fudud ayaanu macnihi dadka qaadnaa. lacagaha ugu badan aad bixisaan waa imisa? lacagaha ugu badan aan bixino ilaa 1 milyan oo Ethiopian bir ayaa la siin karaa qofkii deyn soo codsada, laakiin way u dhaxaysaa ilaa lacagta ugu hooseysa qofka markii la eego awoodiisa deyn uu qaadan karo macnaheedu ugu badan iyo waxa business plankiisa iyo qorshihiisa la qiimeynaya. markii la qiimeeyo waxa uu qalmo inta u dhaxaysa kamid ah yaa la siinaya qof walba. ilaa hadda dad inta leeg baa ka faa'iideystay? guud ahaan lacagta dadka ka faa'iideystay hadda waxay tiradoodu kor u dhaafaysaa ilaa iyo 50,000 oo qof oo deegaanka u dhashay gobolada kala duwan ee deegaanada ayaanu deyn siinay muddadii yareeda xafiisku aasaasnaa maadaama uu sanadkii 7 hadda ku jiro xafiisku. lacagtan ilaa hadda bixinay waxay kor u dhaafaysaa 1.8 bilyan Ethiopian bir yaanu macnihii deyn ahaan u bixinay. haddii dollar ahaan loo bedelo noqon karta 43 milyan oo dollar lacag gaaraysa macnihii dollar ahaan markii loo qiimeeyo. maxaa laga yaabaa mustaqbalka shirkadani inuu noqdo? waxaan rajaynaynaa marka dambe inaan macnihii sida bangiyada waaweyn ee xooga badan oo kale aan noqono oon bangi weyn isu bedelo qorshahanaga macnihii waxda adeegii bangigu bixinayo kale maadaama bixino oon laakiin ka awood yarnahay inaan awooddaa ballaadhino oon adeega bangiga meel walba gaarsiino baan. wahagaakaasi waxa uu ahaa cabdinaasir xikam wariyaha BBC-da nooga soo warrama magaalada jigjiga. caawana ciyaar xiise leh oo kuwa f kaabka ah ayaa waxaay dhex mari doontaa kooxaha kale ah Tottenham iyo weliba Newport County, waxaana markaasi lagu cayaari doonaa garoonka caanka ah ee Wembley oo waayadanba ay ku cayaaraysay kooxda Tottenham. dhinaca kalena ciyaartooyga lagu magacaabo Alex Sanchez oo isagu u cayaara kooxda Manchester United ayaa waxa uu aqbalay markaasi ganaax oo ay saartay kooxdiisii horeeto ee u cayaari jiray lacaga ka helay awadii oo waddankaasi Spain lagaga dacweeyey. waxaana la leeyahay waxa uu markaasi aanu sheegin oo canshuur aanu ka bixinin lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar lacag u dhiganta oo markaa uu ka helay maaliyadda iyo dhinaca xayeysiinta. ciyaartooygaasi Manchester United u ciyaaray Alex Sanchez haatan waxaa markaasi uu aqbalay arrintaasi iyadoo markii horena uu ciyaari jiray kooxda Arsenal, horeyna ugu ciyaari jiray kooxda Barcelona, waxaana uu dhashay waddankaasi Chile.
waa hagaag waxaad naga dhegaysan kartaan waa barta facebook aan ku leenahay ee bbcsomali.com iyo weliba markaasi waa website-ka iyo facebooka iyo weliba efemyada magaalooyinka qaarkood. guud ahaan barnaamijkii caawiya caalamka uu soo saaray cabdinuur, anigoo saalamiinana aan soo jeedinayey, warkana cabdirasaaq uu akhrinayay. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.